xafladda lagu maamusayay qalinjabinta ardayda dufcadii koobaad ee ka qalinjabisa kulliyadda caafimaadka Qabridahar ayaa lagu qabtay magaalada Qabridahar. Munaasabaddan oo ahayd mid ay si heer sare ah u soo agaasimeen maamulka kulliyadda caafimaadka Qabridahar ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Qorraxay, maamulka magaalada Qabridahar, mas'uuliyiinta kulliyadaha Qabridahar, maamulka hospitaalka magaalada Qabridahar, odayaasha gobolka Qorraxay, hooyooyinka iyo ardayda ka qalinjabinayay munaasabadaasi. Ardaydan oo ka qalinjabiyay kulliyadda caafimaadka Qabridahar oo ay tiradoodu ahayd 90 arday oo 60 ka mid ay yihiin gabdho oo ka kala yimid qaar ka mid ah degmooyinka gobolada Nogobo, Jarar, Qorraxay iyo gobolka Doolo ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxay ardaydani ka qalinjabiyeen heerka aqoonta ee Health Extension Level 3 iyo Level 4 oo ay ku qaadan hayeen kulliyadda caafimaadka Qabridahar. Xafladan oo ay khudbado dhaadheer oo kala gedisan ka soo kala jeediyeen mas'uuliyiin kala gedisan oo ay ka mid ahaayeen maamulka gobolka Qorraxay, maamulka magaalada Qabridahar iyo maamulka kulliyadda caafimaadka Qabridahar ayaa waxa ugu horeyn madashaasi ka hadlaya gudoomiyaha gobolka Qorraxay Mudane Yuusuf Aadan Yuusuf. Ardadan oo isugu jirta gobolada Qorraxay, Nogob, Doolo iyo Jarar kuwaas oo iskugu sii dhex jira laba qaybood oo kala ah Level 3 iyo Level 4 oo dhammaantoodba ah Health Extension Workers ama kuwa loo yaqaano inay ka howlgalaan health centerada iyo health boosyada si ay shacabka halka degan ama qabalayaasha degan ama magaalooyinka degan ay ugu fuudeeyaan ama u baraan 16 package-ka loogu talagalay in laga hortago cudurrada faafa iyo cudurrada kaleba. sidoo kalena mas'uuliyiin ay ka mid yihiin maayarka maamulka magaalada Qabridahar Marwo Ifraax Cumar Muuse iyo ku siisimaha maareeyaha kulliyadda caafimaadka Qabridahar Mudane Cabdullaahi Cabdi Xuseen ayaa khudbado dheer oo dhaxalgal ah oo ku aadan xafladan ay ku qalinjabinayeen dufcadii koobaad ee ka qalinjabisa kulliyadda caafimaadka Qabridahar ka soo jeediyay madashaasi. waxa farxad weyn iyo maanta inaan kala soo qayb galo xafladan qalinjabinta kulliyadda caafimaadka ee dafcadii koobaad ah ee Health Extension Workers ka taas oo waxa loogu farxaa ayaan waxaan idin leeyahay dhammaan qalinjabiyaasha mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba hambaliyo maadaama qalinjabiyaashu ay ka kooban yihiin 90 xubnood halka ay yihiin 60 dumar ayaan mar labaad waxaan leeyahay gaar ahaan gabdhaha hambaliyo kulliyadda caafimaadka Qabridahar waxa markii ugu horeysay ka qalinjabinaya dufcadii koobaad ee Health Extension Workers guud ahaan tirada qalinjabiyaasha maanta waa 90 arday oo kala ah Health Extension Level 3 dhadigu uu yahay 45 halka labkuna ka yahay hal arday Health Extension Practitioner Level 4 oo kala ah 29 lab ah iyo 15 dhadiga guud ahaan tirada dhadiga qalinjabiyaasha maanta waxay noqonayaan 60 gabdhood taasoo muujinaysa in ay kulliyaddu fiiro gaar ah siisay dhanka dumarka. dhankoodana ardayda ka qalinjabinayay kulliyadda caafimaadka Qabridahar ee dufcadii koobaad ee ka kala yimid qaar ka mid ah degmooyinka gobolada Nogobo, Jarar, Doolo iyo gobolka Qorraxay oo ay u ahayd maalin farxadeed ayaa mar aan dareenkooda wax ka weydiinay waxa hadalladoodii ka mid ahaa sida tan. waxaan ka qalinjabiyay ahaan department Level 3 waxaan Health Extension Workers waxaan halkan hambaliyo ugu dirayaa maanta oo na soo gaarsiiyay xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya. waxaan ka socdaa gobolka Nogob gaar ahaan degmada Garbo maanta waxaan ka qalinjabiyay filliga la yiraahdo Health Extension Practitioner ama shaqaalihii hore ee la oran jiray Health Extension Worker oo qaatay muddo sanad ah kadibna noqday Level 4 ayaan ka qalinjabiyay maanta marka koobaad waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay baa mahad iskale marka koobaad marka labaad waxaan u mahadnaqayaa xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo kii ah heerkan soo gaarsiiyay kulliyadda caafimaadka Qabridahar oo la daafuray sanadkii 2006 tirsi taariikheedka dalka Itoobiya ayaa waxay arintani qayb ka tahay midhihii ka soo baxay dadaalkii iyo himilooyinkii ay hogaaminta xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya 5 sano ee la soo dhaafay u gashay horumarinta shacabka ku dhaqan dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo dhan.